بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabe maanta waxa aan diirada saarayna coronavirus waxa uu dilaacay sanadkii tagay dabayaaqadiisa sidoo kalena coronavirus waa caabuq aad u daran oo dunida dhan ka qeylsiiyay Allah ayaan ka magan galeynaa shartiisa iyo dibtiisa caabuqan waxa la sheegay in uu asalkiisa ka yimid cunida iyo ka agdhawaashaha xayawaanaadka duurjoogta ah guud ahaan xayawaanaadka duurjoogta ah gaar ahaan kuwa waxa la sheegay in cudurkan ka soo bilowday kibiliga ama fidmeerta taas oo ay cuneen dadka shiinayska waxa la sheegaa in ay cunaan guud ahaan noocyada kala duwan ee xayawaanaadka nool oo aanan yani loogu talagelin in la cuno haday doonaan masaska ay cunaan baaliiri marka waa rag culus kulay sida aan wada ogsoonahay caabuqan markiisii ugu horeysay waxa uu ka dilaacay gobol ka tirsan China oo lagu magacaabo Wuhan ayuu ka dilaacay cudurka markiisii ugu horeysay oo lagu arkay waxa jiro dhaqtar Dr. Lil Wuhan ayaa la yiraahdaa waa dhakhtarkii ugu horeeyay ee ogaaday in uu cudur soo galay dalka dhakhtarkaasi waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirtii ugu horeysay ee u geeriyootay cudurkan waxa uuna geeriyooday bishii hadda soo dhaaftay bishii labaad 6deeda waxa aan rabnaa marka in aan ogaano maxaa cudurkan ka dhigay halis caalami ah yani sababta ugu badan ee cudurkan khatar ka dhigtay maxay tahay waxa aan baaritaan ku ogaanay in ay tahay laba midood cudurkan waxa lagu kala qaadi karaa si fudud hadii aad la hadasho qof uu cudurkan ku dhacay ama aad la sheekaysato isla markii waxa fudud in aad cudurka qaad sababtoo ah cudurkan wuxuu ku fidayaa hawada ayuu ku fidayaa sidoo kale cudurkan halistiisa waxa hadii aad taabato qofkii hadii aad cunno wada cuntaan marka waxa aad u adkaanayso xiriirkii dadka ka dhaxeeyay maadaama uu ku fidayo in cudurka la joojiyo hadii ilmahaaga uu ku dhaco qasab waa adii ilmahaaga waa isla xiriirinaysan hadii walaalka uu ku dhaco waa isla xiriiraysan marka cudurka waxa fudud sida uu ku fidi karo aad ayuu u baahi karaa halka qof ayaa laga yaabaa maanta inuu 10 qof ama 15 qof ama 20 qof inuu la kulmo oo gacan qaado marka ama ka badanba sababtoo suuqyada ayaad maraysaa maqaayadaha ayaad tagaysaa marka hal qof ayaa wuxuu gaarsiin karaa magaalada dhan sababta koowaad waa taas sababta labaadna cudurkan qofku waxa uu ugu dhiman karaa si fudud sababtoo ah caabuqan waxa uu weerar xoogan ku qaadaa sanbabada guud ahaan waxa ugu daran ee dadka dhibaatada ugu badan cudurkan u yeeshay waxay tahay dilaa waa inuu noqday cudur dilaa ah si fududna qofka uu ku dhiman karo sababtoo ah sanbabada waa halka aan ka neefsano waxa xumaanaya neefsiga qofka waxa ku dhacay sanbabada inay isku dhacaan waxa dhacaysa in qofkii oxygen jirkiisa la geen waayo sidoo kale carbonti ama wasaqdi laga soo saari waayo taas oo keenaysa qofka in uu dhinto haddaba calaamadaha ugu badan ee coronavirus maxaa lagu garan karaa maxay tahay calaamadaha waxa la sheegaa 3 calaamadood oo common ah oo israaca hadii la arko in coronavirus ka agdhowdahay waa cudurkan horta waa soo boodo qofkii oo caafimaad qabo oo wax aan qabin in hal mar calaamado ay ka soo muuqdaan calaamadaha waxa kamid ah qandho hadii qandhada ay sare u kacdo ama qofka marka qandhada laga cabiro ay gaarto 38 degree laba qofkii qufac in lagu arko qufac aad u daran iyo sanbabada oo qofka xanuunaya in lagu arko cudurkan dadka waxa uu ka asiibaa sanbabada sida aan hore u soo sheegnay taas oo keentay in qofka isla markiiba ay ka soo muuqdaan calaamadaha lagu yaqaan cudurka ku dhacay sanbabada cuduro badan ayaa sanbabada ku dhaca marka qofkii waxa ka soo muuqanaysa inuu qufaco hintisho neefta ay qabato ama uu neefsan waayo ayaa qofka lagu arkaya qodobka saddexaad oo ah hadii ay neefta ku dhibto halis kale waxa kale oo la sheegaa qofka inuu dareemayo xabadka inuu xanuuno calaamad soo raac way jiraan waxa kamid ah shuban jareys tabardari qofka lagu arko waayahay meeqa maal ayuu cudurkan ku soo muuqan karaa macnaha markaas waxaan ka wadnaa cudurka markii uu kugu dhaco ilaa calaamadiisa ay ka soo muuqan karaan oo jirkaaga ku qarsoonaa karo hadii cudurka uu kugu dhaco jirkaaga wax uu ku jiri karaa 2 ilaa 14 maalin ayada oo aan laga arkin wax calaamad ah sidii ku dhacay dhakhtarkii ugu horeeyay ee cudurkan shaaciyay kaas oo markii dhowr jeer la geeyay isbitaalka lagana baaray cudurka lagana waayay kadibna uu u geeriyooday sidee ayaa looga hortagi karaa marka cudurkan waxa la yiraahdaa cudurkan waxa uga hortagi karnaa in hilib xalaal ah oo si fiican loo kariyay aan cunno laba waxaan leenahay in laga fogaado duurjoogta oo xiriir la sameeyo xiriir macnaha waxa ka wadana in la xanaaneysto guriyihii la kaasado ama la qoodiyo oo kale in aan u safarno wadamada uu cudurkan ka dilaacay ayadana waa halis kale sidoo kale waxa muhiim ah si cudurkan looga hortago nadaafada in la ilaaliyo waxa jira marka
qof joogo kale wadankii uu cudur ka dilaacay waxaa muhiim ah in ay yareysid dhaqdhaqaaqa sidoo kale waxaa muhiim ah in ay xiratid maaska wajiga kaasoo ka ilaalinaya viruska ama protection u ah in hawo nadiif qaadatid hawada jeermiska eedna ka difaaci kara sidoo kale waxaa muhiim ah in aadan la wadaagin qofka cudurka qabo weelasha ama dharka uu isticmaalo ama guriga yani uusan kula joogin taas ayadana waa muhiim waayahay kahortaga ugu wanaagsan aan wada ogsoonahay waa in aan ka duceysano cudurkan maadaama uu yahay cudur halis badan ducada ugu fiican ee aan ka aqrisan karno sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ugu duceysan jiray cudurrada dhan waxa ay tahay Allahumma inni a'uudu bika min al-barasi wal-jununi wal-jidami wa sayyi al-aqsam waxa daawo ah cudurkan ma loo helay waxa la sheegay ilaa hadda cudurkan inaan loo helin waxa daawo ah kaliya waxa la siiyaa qofka uu ku dhaco la tacaalid in laga daaweeyo ama laga yareeyo calaamadaha in la dagaalamo sida sanbabka qofka kale neefta inay ku dhagto kale in laga hortago waxyaas sidoo kale ilaa haddana hay'adda caafimaadka adduunka ah talaal uma aysan soo saarin oo wax talaal ah ma lahan cudurkan waa maasan tahay daawashada muuqaalkan fadlan haddii aad kanalka ku cusub tahay ku soo biir asxaabtaadana la wadaag si ay uga faa'iideystaan mahadsanid